kulanti wacan daawadayaasha qiimaha badan meel walba naga daawanaysaan waa walaalkeen wariindho soo idleh ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa laba barnaamij ayaan ku soo dari doonaa haddii alla idmo barnaamijka koowaad oo ah badoonaysa masarabta inaad dareen rabitaan ama dareen jacayl ku abuurtid qof ama qof aad soo jiidatid haddii jawaabtaadu haa tahay haddii aad rabtid saddexdan shay samee oo aan barnaamijku uga sheekayn doono ma doonaysaa in aad guursatid ama aad la sameysad xiriirkaaga si dheeraado haddii aad 10 shay ka heshid qofkaaga ama qofka xiriirka ku leh 10 kan shay aan ka sheekayn doono haddii aad ka heshid fadlan ha siideen waa qofkaaga guurso waad maasantii waa walaalkiin wariindho ku soo dhawaada barnaamijka haddaba daawaday haddii aad nagu cusub tahay ha ilaawin channelka inaad subscribe saarto sidoo kalena aad gambaleelka furato si aad ula socoto bartani muuqaalada kala duwan iyo barnaamijyada kala duwan ee aanu idinkula soo wadaagno imika iyo haatan ku soo dhawaada waana diyaarintii wariye Ismaan Indhoos daawada xusuusnow marnaha u bedeli nafsadaada ama shakhsiyadaada si uu kuu jeclaado ama ay kuu jeclaato qofka aad rabto dartiis ama darteed ee ahaw qofka aad tahay mar walba laakiin taas micnaheedu ma ahan dadaalka aad ku kasbanayso qalbiga qofka aad jeceshahay inaad hakinayso ama aad joojinayso hagaag waa kuwaana 3 talaabo ama tusaale aadkana u sahlan ee ku kasban lahayd qofka aad rabto tusaalaha koobaad dhageyso oo u fiirso waxa ay leedahay ama uu leeyahay su'aalo ka weydii sheekada uu ku wado ama ay ku wado noqo qof si dhab ah u xiiseynaya waxa ay leedahay ama uu leeyahay tus dareen sida sheekada ama sheekadiisa ama sheekadeeda ay kuugu socoto tusaalaha labaad u fiirso oo ogow marka uu sameynayo ama ay sameynayso wax cusub ama ay xirato ama uu xirto dhar cusub boogaadi oo u muuji in aad la socoto wax walba ku soo kordha si uu u ogaado ama ay u ogaato sida mar walba ugu kuurgalayso xaaladeeda tana waxay gelinaysaa dareen qaas ah tusaalaha saddexaad ka qosolsii oo tus shucuurtaada ama dareenkaaga farxadeed ee aad u qabto agjoogiisa ama agjoogeeda wax ka qosolsiiyo u sameey waa hubaal inay ku xasuusanayso ama uu ku xasuusanayo xilliyada ay niyad jabsan tahay ama uu niyad jabsan yahay dareemiyana inay ka maqan tahay farxadaadii waxayna ku arkaysaa ama uu ku arkayaa hadduu ku helo farxad aad ku soo biirin lahayd noloshiisa raac daawada 3 talaabo waa xaqiiq in aad kasbanaysid qalbiga qofka aad rabto inuu ku jeclaado qodobada 3 aan soo qaadanay waxa kamid ahaa dhageysiga u fiirsashada iyo ka falcelinta waxa cusub uu soo qaato ama ay soo qaadato iyo farxad gelinta ama ka qoslisiinta mahadsanidin daawadayaal barnaamijka sidaad ula socoteen 10 calaamadood haddii aad ku aragtid qofka xiriirka aad la leedahay ama xaaskaaga oo qofka calaamada koobaad is-aaminitaanka is-aaminadu waxay udub dhaxaad u tahay wada noolaanshaha lamaanaha haddii ay meesha ka baxdana waxaa mugdi iyo murugo iyo muran galaya noloshooda waayo qofka haddii aaminku ka baxo waxaa ku dhacaya xanuun iyo dhaawac dhanka qalbiga waa inaad isku qalbi furan tihiin isna aaminsan tihiin qofba qofka kale waxa uu la soo kulmo noloshana la wadaagaa haddaba haddii aad dareentay intaa ama aad ku aragtay is-aaminida aan ku soo xusay kor kana fogtiin dhibka aan sheegay ee is-aamin darrada daawada qofka waa qofkaagii ha fasaxin hore u gal noloshiisa calaamada labaad haddii aad ku aragto gabadha xiriirka aad la leedahay mid mar walba ku dhiirigelinaysa kuna dadaalaysa mar walba sidaad noloshaada ugu guuleysan lahayd haddii ay dareento markaa ku soo wareerto shaqo ama magaalada waxbarashada dareemaysana inaad u baahan tahay farxad
qoftaas haddii ay tahay qofta aad xiriirka la leedahay haddaba ha fasixin daawade waa tii nolosha ku anfici laheede waayo caqabad walboo ku soo wajahdaa way ku garab taagan tahay dhan qalbi iyo dhan dhaqaale iyo dhan xoogba. calaamadda saddexaad waa inaad ku aragtaa mar walbo ay ku heeso baahi shakhsiyadeed dhan dhaqaale ama dhan wehel waa inay dareentaa kulana wadaagtaa sida ay afka qalaad ku dhahaan sharing is caring. marxalad walba iyo jawi walba mar walba dabeecaddeeda isma beddesho ilaa aad baratay ilaa xilligaas la taagan yahay. haddaba haddii aad aragtay calaamadaas qoftaas waa qoftaadii ogow daawade. calaamadda afaraad ma dhacdaa in marmar isku wax aad niyadda idinkaga soo dhacaan ama aad isla kowsataan oo iskula hadashaan? mase dhacdaa inaad isku fikrad noqotaan oo isla hal shay isla soo jeedisaan, hal shay isla jeclaataan ama hal shay isla caashaqdaan ka wada heshaan? ma dhacdaa isku raashin in aad isla jeceshihiin dhanka dooqa raashinka oo aad isku wada qanacsantihiin inaad cuntaan raashinkaas? mase xilliga mindi ku taag ayuu ku idlaadaa? haddaba haddii ay dhacdo intaas qoftaasi waa qoftaadii ha sii deen daawade. calaamadda shanaad ma tahay shucuurteeda mid mar walba isla sidii ah mise waa isbedbedel badan tahay oo maalinba shucuur ama maalinba dareen gooni ah ayuu leeyahay wejigeeda? haddaba haddii shucuurteedu tahay mid joogtaa aan isbedbedelayn, haddii ay saas tahay haddaba daawade waa qoftaadii ha sii deen waayo qofka marka uu muddo wada socotaan ama wada nooshihiin waa inuu leeyahay hal weji ama hal shucuur aad ku barato kaasoo ah mid aan isbedbedelayn. calaamadda lixaad ma tahay qof damac iyo hami leh? ma tahay qof ku fakarayso siday nolosheeda iyo nolosha qoyskeeda ku horumarin lahayd? ma tahay qof ku hamisaa isgarab istaagga lamaanaheeda siday mas-uuliyadda culus ee saaran ula caawin lahayd? haddaba haddii ay tahay sidaas daawade ha sii dayn qoftaasi waa qoftii noloshaada aad la wadaagi lahayd. calaamadda toddobaad ma tahay qof isxakamayn kartaa marka ay maseerto ama ay heynaasto? mase tahay qof aan shaki badnayn haddii aad baxdo oo aad raacdo asxaabtaada kaagana shakinayn inaad aadda meel kale? mase tahay qof aan isku taxallujinayn xaggee aaday iyo yaad la joogtay intay joogtay intaba? haddaba haddii ay sidaa tahay daawade waa qoftaadii ha sii dayn faraqahay. calaamadda sideedaad ma tahay qof kugu dhiirigelisaa inaad noqoto qof wanaagsan? ma saxdaa qaladaadkaaga nolosha si degan? ma kuu tusisaa waxa kaa qaldan? ma kuu muujisaa inay kuu tahay saaxiibka kuugu dhow adduunka inay iyada tahay? haddaba daawade haddii ay sidaas tahay qoftaasi waa qoftaadii gondaha haay. calaamadda sagaalaad ma tahay qof ku xushmaysaa intii xad ah? ma tahay qof xushmaysaa waalidka iyo walaalaha iyadoo ka goosaysataa wanaagga ay kuu hayso adiga? mase tahay mid muujisaa xitaa marka ay dad marti ah idila joogaan heerka xushmadda ay ka taagan tahay dhankaaga? mise way isbeddeshaa marka dadka kale ay arkaan sida qof aan ku kala jeclayn? ma ku dhagaysataa si wanaagsan mase tixgelisaa soo jeedintaada? haddaba haddii ay sidaa tahay isha ku hay qoftaadii nolosha ayaad gacanta ku haysaa daawade. calaamadda tobnaad ee ugu dambaysa ma isjeceshihiin labadiina si qoto dheer? mase yahay xiriirkiina iyo jaceylkiina mid aan ku xurnayn shuruud? ma yahay xiriirkiina iyo jaceylkiina daawade midaan ku xurnayn shuruud? maadaama waayaha dambe soo bateen xiriir dani ku hoos jirto, waayo haddii jaceylku dani ku hoos jirto midkiin waa xaqiiq ma noqonayso nolosha mid sii hana qaada. intaa isla joogtaan ma ahan mid degan noloshaas. qofka markuu ku jeclaado shuruud la'aan labada dhanba kuna aqbasho waxa uu yahay qofka waa marka lagu tilmaamo noloshaas romance life ama nolol ay ku dheehan tahay jacayl dhab ah
taasoo u gogol xaaraysa in aad weligiin inta aad nooshihiin wadajirkiina sii socon doono. daawade mahadsanidin daawadayaal, fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh janaalka, like-ta nagu dhiirigeli, commentina noo dhaaf oo hoos noogu dhaaf sidaad u aragto barnaamijka. anigiyo bahda janaalka waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabaadiino iyo nooli kulantii.